بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيش سبتمبر وسديد لاتن لبدا كوني لاتن كا waxaan joognaa ceelkii hareer ee magaalada Hargeysa. Shalay baa baraha bulshada waxaanu ka maqlaynay oo shacbigu aad u leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo sida ay warbaahintu sheegtay liiri wuxuu ka hadlayay meel lagu sheegayay maxad oo ku yaala magaalada Muqdisho oo ay dadweynuhu gaar ahaan dhalinyaradu su'aalo ku weydiinayeen xaqiiqadu ahayd inaanu halkaa joogin uu joogay gurigiisii ku yaalay madaxtooyada oo maxadkan la sheegayo oo kamida kuwan ay Hargeysa u taqaano malcaamadaha madaxtooyada reer Burcaan magaca dhererkiisa ay dhibsaano maamaaladii xamar bay yiraahdaan inuu dad gaar ah oo xula kaxeeyay su'aalo gaar ah loo dhiibay su'aalaha hore madaxweynaha loo siiyay lagu baaray halkii madaxtooyada la hubiyay dadka ay yihiin dabeedna ay hor fadhiistaan dabeedna riwaayad loo dhigay dadkii sidii waxay siin iyo jiim tahay oo su'aal iyo jawaab la isweydiinayo ayaan daraduna tahay su'aalaha isagoo si wada haystay arkaysan sidii ugu margaday su'aashii ku saabsanayd sool iyo sanaag ee waxba ka oran kari waayay arrintaasaan jeclay inaan ku yar hakado oo uu kaga hadlayay inaan gobol goosan karaa jirin inaan Soomaaliya kala guyi karin in midnimadu muqaddas tahay la yaab male markuu de Farmaajo yiraahdo midnimadu waa muqaddas oo kale oo uu ka maqnaaday bariyihii ereyga isticmaalkiisu uu aawanaa 1992 markii magacuba soo baxay de wax midnimo la yiraahdo ma jirin laba gobol oo isu tagay ama Israaciil baa jiray si ay u baadi doonaan walaalahoodii Soomaaliyeed oo ay u rumeeyaan riyadii bariga jirtay ahayd Soomaaliyeed ama shanta Soomaaliyeed oo wax la yaab lahayn annaguna aanu siisanay madax banaanadeedii iyo gobonnimadeedii aanan aaminsanayn inaanu ku qaldanayn aaminsanahay inaanu sax ku ahayn laakiin tii lala ambaday ayaa wuxuu ka hadlayay midnimadu waa muqaddas ereyga muqaddasna sidiisaba maaha erey siyaasadeed erey bixinta siyaasadda kuma jiro waa erey diiniya oo ka hadlaya waaritaan ilaahay baa waara asmaa'ullaahi al-husna ay ku jirtaa waxaan la yaabaa ninkan jawhar jooga Maxamed Cabdi Waare iyo xalina ma garanaye waliba dee ku faanayay inuu magaca leeyahay amara fiicnaan lahayd sidan uu sameeyay magaca loogu daydeeyo in isagana magac loo daydeeyo Waare iyo wax loo bixiyo tii laga duway la waarmaayo u dhimanay marka wuxuu ka hadlayay inaan cid guuy kartaa jirin in haddii ay go'do haddii gobol go'o aan la ixtiraafayn in haddii gobol go'o Afrika ay dumayso wax aynkaas isagoo oo habeenii maalin Abiy Ahmed la fadhiyo oo wixii Itoobiya Eritrea kala dhaxmaray oo Xamduuq iyo Salva Kiir la fadhiya habeenii maalin oo Suudaanta Koonfureed iyo Suudaanta Waqooyi wixii kala gaaray isagoo kala baxeen ayuu hadana inaga ugu leeyahay Afrika kala daadanaysa Afrikada de qosol ku jabka kala daadanaysa garan mayno marka dadku markaanay ogeyn wixii uu dalkan iyo dadkan soo maray ma Soomaaliya nafteeda ee uu saasoo kale uu ugu soo dhaxdhaco sidii dhagax ayuu dabeedna iska oranaya waa muqaddas waa erey calal noqday oo daaynu ka soo daalayo la isticmaalayo si walba loo isticmaalay oo aan maanta isticmaalkiisu taagnayn annaga halkan qaar baan la joogay shalay yimid oo koronaya wallahi inaan u yeeri doono bergidee la goolaabsan jiray iyo waxaan ka soo kale marka way iska badan yihiin dadka siyaasi
annagu maanaan goosan oo dee cid aanu ka goosanno oon kolka horeba ka tirsanayn ayaan jirin hadalkunbaa odayga halkaa la maree annaga cagaha iyaga xamar ku nimid annagoo 5 Soomaaliyeed iyo walaalo Soomaaliyeed baadi doonayna 30 sanadood haddaanu joogno dhibaata naga gaadhayna wixii waanu ka quubsanayo markii 5tii kala maarmeen qaadii sareed iska shatay annaguna waanu iska noqono horta maanaan goosanne halkii aanu ka nimid baanu ku noqono wax dhibaato ku jira taana ma jiraan wax midnimo la yiraahdo oo jira oo hore u dhacay mustaqbalkana ilaahay baa og dadka Soomaaliyeed baan ku xidhantay laakiin maanta mid aawan oo muuqata maaha isla markaa uu farmaajo ka hadlayo meesha maxadka lagu sheegayo ee uu leeyahay midnimadii iyo kan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shalay kulliyadda macallimiinta ka hadlayaayo maan soo gaarin hadalkee waxaan ku soo gaaray isagoo aad uga xun in la leeyahay golihii guurtada iyo golihii baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa xamar lagu dhisayaa hadalkiisa waxa iga muuqatay inuu aad uga xumaa arinta farmaajana uu ka soo hadlayo hadalka maanugeyn iyo wuxuu ka yiri laakiin tii hadalku markaa kaga baxayay baa wuxuu ahaa shacbiga reer Soomaaliland baa ka hadlay dadka Soomaaliland ayaa ka hadlay annaga u taagno ka hadlayna laakiin tii madaxweynaha Soomaaliland waxaanu ka rabnaa farmaajo inuu isu ururiyo isu duwo oo labada dhinac ka soo jafo oo meel soo joojiyo si aan farmaajo kaliya u hadalo diiwaanaan taageeray annagu 30 farmaajo Djibouti fadhiyo oo la wada hadalaan ku jiraayo waxaan doonayaa in arrinta Soomaaliyeed la dhameeyo farmaajo le ma guyi karaan oo meel ma tagi karaan oo Afrika baabay soo cidina ixtiraaf mayso farmaajo le golihii baarlamaanka iyo golihii guurtida Soomaaliland baan xamar ku soo xulaya xukuumadda Soomaaliland arrintan mowqif ka qaadato horta yaanu la hadlaynaa annagu markaa farmaajooyinkan keebaanu abaarnaatee waxaanu jecelnahay dee waxa iyaga ilaa xoogaygu firqi maayo oo kun meelood ku dhici maayo meel buu ku dhacayaa oo jihada jugta weyn buu ku dhacayaa waa keewi muuse waxa looga fadhiyaa in xukuumaddu ay mowqif ka qaadato 10 kan seeb ee lagu kaxaynaya arrinta ee marna lagu fadhiyo Djibouti ee wada hadal lagu jiro marna baarlamaanka loogu sameeyo marna leeyahay meel lama tagi kartaan lugta ka xirantiin socon maysa taasi dawladda iyo dadkuna hadaanay isku mowqif ahayn kala socdaan waxyaabaha dhibaatada ugu badan keenaya imika ba taagan arrintu halkaas ay taagan tahay mudane madaxweyne waxay taagan tahay farmaajo waa kee kunkan keebuu ka noqonayaa la abaaraya farmaajo wuxuu leeyahay cidina ictiraaf mayso tanina dhici mayso waxaanu ictiraafkeygii ku laanahay maaha muqdisho diidan ictiraafkeygii waxaanu ku laanahay maaha adduun weynaha diidan ictiraafkeygii waxaanu ku laanahay maaha igad baa diidan maaha midowga Afrika diidan maaha European Union ka diidan maaha kana diidan xaqiiqadu waa mid waana mid kaliya annaga ayay nagu xidhan tahay waxa maqanina annaga ayay nagu maqayn waxa maqani annaga ayay iskaga kaayay maqayn ictiraafkayga aqoonsigayga iyo jiritaankayga baargeysu yaala caruurtayda iyo dhalinyarada iyo dadkayga inaan la hadlo annaga u taagan cid la hadli mayso uma baahnin hadal meel baas laga soo tuuro wax allayaal wuxuu ka tareeyana ma jiro dadkayga lagu beer la xawsan maayo 30 sanadood baa leedin ictiraaf waayo dabeedna shacbiga baabaayo dadka baabaayo meel fog ma tagno markii saas oo kale too qaraamigeygii baan iska yar doonanayo ilaah baa hayo hedeena jira ilaah baa haya oo hedeena jira maanta waxa lagu jiraa baadidoonka dawo lagu talaalo coronavirus balka warama adduunka haduu iska fariisto waxaan 8 sanadood baan raadinayna inaga daay corona muu tagaya marka dee talaalkiin la helmay South Africa intaas oo sanadood bay gobolnimada soo dagaalamayay 5 markii maraysa dee taawar waxaan naga daay kor
adduunyadu si ama shaqayso اعترافكنا دقدق كوي من معيو مدح برنامج سوماليلاند دقدق كوي من سو waxay ku imanaysaa hadba siduu shacbigan ugu hawl galo isugu duubnaado daacad uga yahay uga niyadsan yahay ay ku imanaysaa dulqaadkeedana la yeelanaya meel aanu ka calaacalo aanu ka oynoon ka tiiraayona ma taagnin oo dadkaygu ma taagna ninka xamar nooga baaqayana meel aliyaana meel uu noogu baaqaya ma jirto farmaajo macadka uu tagi kari waayay intuu ka baxo gaari ka haysto uu tagi kari waayo uu ka doodi kari waayay badbaadi uu tagi kari waayay badbaado jireed buu tagi kari waayo in la qarxiyo ka baqday badbaado maskaxeed buu tagi kari waayo dadku inay la doodaan buu ka baqday markaasuu xoogaa ii soo xulo oo su'aalahoodana ii keeno aan ka jawaabo aan la hadlo shacbiga reer Somaliland midnimadeenu inaga inagu xidhan tahay horumarkeenu inagu inagu xidhan yahay dad liita ma nihin dad aan la aqoonsan oo aan waxba qabsan karin ma nihin wax la og yahay baynu soo jeednay waxa wax ka badan oo ka daranna waynu jeedi karnaa Soomaalintii aynu nidaamkii Maxamed Siyaad Barre burburinaynay tamar iyo taag basan mumaynaana keenay weydinka ka arkay fiidiyoyada ka daawanaya tamarteenu intee laakayd maanta intee laagtahayna waa ogtii adduunyadu waa riwaayad dadka matalaya intaasoo sannadood bay sii socotay way sii soconaysaa dadkaas sii matalaya dee dadkuna dadkii berigii hore noolaa ma noolo ma sii matalayaan hadba da cusub baa ku soo kordhayso dabeedna da'da cusub baa halkaa shilidii ka sii qaadaysa farmaajo tan uu idinka sheekeynayana waxa weeye inuu waxaba qofku u soo wada taagnaan uuna soo taagnaan maaye in yar uu ku leeyahay oo ninba cimrigiisu ku kooban yahay ayuunbuu jilideeda leeyahay markaa ku niyad jabi mayno 30 sannadood ku niyad jabi mayno 60 iyo 70 iyo 90 iyo 1,000 sannadood wax fog maaha waa waxaynu inagu leenahay waa waxaynu inagu haysano waa wax inagu inaga xidhan waa wax aan meel fog inaga jirin waa waxaynu iska aqranayno oo aynu dalkeena iyo dadkeena u hori laanahay oo intaynu inagu dhagxaan isugu ridnay disti isu karinayno odhanayno imka islaanaya waxa inaynu ka baxno oo runta qaabilo ayaa loo baahan yahay suradihii baa inoo duubashi badan baa inoo taala suugaanteennii baa taala waxaan hadalka ku soo ururinayaa tudcuu lahaa maxamed xaashi dhamaan gaariye oo mararkan oo kale ay tahay inaan soo qaadataan oo qalbiga daxalka iyo niyadjabka kaga isfaysaan si aad dardar cusub mar kale u gashaan waa 83 oo magaalada Addis Ababa waa bishii Juulaay in yar horaanteeda waa shirweynii saddexaad baanu lahayn garnaqsi baa leeyahay ma qabla min xilligu galshadii ma maran gurgurkiina weli gibishii ma furin ha iska gaambiye wuxuu gaadhayaa kolley guri ka roon gubadkaad ka timid oo ka geeda badan xaqiiqadu waa taas geedaha kaday ma jiro waa gaabiskaas anaa huba taasaynu ku hawlgalaynaa laaxin laga jari maayo waxyaabaha yaryar caynkaas ee laydinkula hadlayana ha ku niyad jabina midnimadiina walaalnimadiina wada jirkiina iyo wada jooggiina ilaashada aynu u diyaar garowno qaabkan aynu u noolahay maanta inaynu ka digarogano qaab ka dhaama oo aynu kaga gudubno inta xilalka u qaadatay xilka aanu haysan xil gudasho ee xilalka u haysata xil quudasho ee biishata heeriyadaas aynu soo rogi lahayn aynu isu diyaarino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.